gobolka bariga dhexe xiisadiisu saaka meel adag ayay gaartay marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan. Xuutiyiinta waxa ay weerarkii ugu xoogganaa ku qaadeen wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyadoo lagu soo waramayo warshadihii sifaynta shidaalka in ay la kulmayaan dhibaatooyin xoog leh iyo waliba dab adag oo ka kacay kadib markii si adag loogu garaacay gantaalo ballistic ah iyo sidoo kale diyaaradaha iswada. Xuutiyiinta weerarada waa la balxaadiyeen waxaa la soo warinayaa sidoo kale in ay gubeen dhowr saldhig oo kamid ah kuwa ku yaala gudaha wadanka Yemen oo ay wada joogaan ciidamada Sacuudiga iyo waliba kuwa dawladda caalamku aqoonsan yahay ee cadan fadhisa. wadan lixaad kale ee Xuutiyiintu xagee ka imaanaysa Sacuudi Arabiyana ma waxa uu dhaxda u galay dagaal aan dhamaad lahayn. akhiray barnaamijkeena ayaan ku eegi doonaa qodobkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu neefta ayaa ku dhagan marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada hadda ka soconaya gobolka bariga dhexe. Isbahaysigii lagu dhisay Makka waa isbedelay waxaana uu muuqanayaa xilligan in durbaba la bilaabay hadallo aad u kulul iyo waliba in dhinacyadu ay isweydaarsadaan degneyna kala duwan. maxay tahay sababta Israel ay uga baqayso Masar in ay ku biirto isbahaysigan? si gaar ah ayaan u eegi doonaa. markii ugu horeysana dawladda Pakistan ayaa ku dhawaaqday Israel in ay tahay mid halis ku ah jiritaanka dawlado fara badan oo Islaami ah iyo kuwa Carbeedba, sidaas darteedna loo baahan yahay in si wada jira loo aado. markan dawlad ku hubaysan nuclear ayaa si aad ah waxay isku hayaan Israa'iiliyiinta. hadalka Islaamabad ma waxa uu noqon doonaa mid aan dheel ahayn? tanina ma la arki karaa inay tahay walaaca ugu badan ee hadda Netanyahu wadnaha gooyay. ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran General Hussein Mahabi ayaa saa ka hadlay. waxa uu leeyahay casharka loo dhigay cadowga waxa uu noqday mid ku qasbay yoolashiisa inuu ka tanaasulo. dawladda Iran waxay gacanta ku haysaa buu leeyahay gool xaqiiqo ah oo aan walwal lahayn. haddaba maxaa jira? Pentagonka ayaa amray in si degdega loo sameeyo hubkii ugu cuslaa ee Mareykanka. waliba waqti yar ayaa loo qabtay warshadaha kadib markii la ogaaday dawladaha Ruushka iyo Shiinuhu in ay daba socdaan wadankaasi Mareykanka, isla markaana suurtagal ay tahay in dagaalo waaweyn ay dunida ka dhacaan. qodobadaas ayaan khiyaaray saaka oo ay bisha tahay 9 ku fiiri doonaa wararka ugu waaweyn ee ka imaanaya gobolka bariga dhexe iyo xiisadaha taagan. saaka dawladda Pakistan ahayd hanjabaad culus ayay waxay u jeedisay nidaamka Israel. Qawaja Asif wasiirka wasaaradda difaaca ee wadanka Pakistan waxa uu leeyahay marka la fiiriyo nidaamka Israel waligiiba waxa uu qatar ku ahaa jiritaanka dawlado fara badan oo muslimiin ah. sidaa darteed waa in la sameeyo cudud mid ah oo looga hortagayo cadowgaasi gobolka in la fadhiya si guud ahaanba loogu dhufto buu yiri dharbaaxa aad u adag. Pakistan waxa ay ka mid tahay dawladaha aan kaftamin ee gacanta ku haysta hubka nuclearka. samarkaana tilaabadan waxay ka dhigan tahay in dagaal kale oo gobolka bariga dhexe uu ku sii socdo aan waxba la isku reeban doonin. sida uu warka ku sheegay wasiirka dagaalka ama difaaca ee wadankaasi Pakistan Qawaja Mohammad Asif ayaa sheegay in Israel buu yiri ay qatar ku tahay dunida Islaamka, isagoo ugu baaqay dalalka muslimiinta in ay sameystaan mowqif iskaashi military oo mid ah oo ay kaga hortagayaan dhibaatooyinkaasi weyn ee loo baahan yahay si degdeg ah in wax looga qabto. hadalkan ayaa yimid kadib markii Pakistan, Sacuudi Arabiya iyo Turkiga ay magaalada Makka al-Mukarrama ku kala socdeen heshiis difaac oo wada jira xilli ay sii kordhayaan xiisadda gobolka ee Israel iyo dunida Islaamka gaar ahaan dawladda Iran. Asif ayaa sheegay in saddexda dal ee ummadda Islaamka u abuureen madal isagoo ku baaqay in albaabka laga xiran dalal kale oo doonaya in ay ku biiraan qaab dhismeedkan cusub oo ay diyaar u yihiin in ay soo dhaweeyaan. wasiirka ayaa heshiiskan ku tilmaamay bilowga nidaamka dunida Islaamka ah isagoo ku booriyay baa la yiri dalalka muslimiinta in ay khilaafkooda jira
ku xaliyaan wada hadal iyo iskaashi isla markaana loo midoobo wada jir iyo waliba gacan sareyn mid ah. hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli isbahaysigu uu hadda gaaray meeshii ugu adkayd isla markaana u muuqanaya in isbedelo waaweyn ay soconayaan. Israel wadnaha ayaa rugla saaka marka la fiiriyo wararka qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ay qorayaan ee gobolka bariga dhexe. walaaca ayaa se ugu weyn in isbahaysiga Maka ay ku biiraan wadanka Masar iyo waliba dalal kale oo Israel ay u arkaysa inay tahay shaacin dagaal oo iyada ka dhana haddii xaalka ay sidaasi ahaadaan. Ra'iisul Wasaaraha Israel ayaa si taxadar leh ula socda baalayri suurtagalnimada in Masar ay ku biirto isbahaysiga cusub ee difaaca oo ay samaysteen Saudi Arabia, Turkiga iyo Pakistan. talaabadan haddii ay dhacdo waxa ay bedeli kartaa isu dheelitirka awoodda militariga iyo siyaasadda ee gobolka bariga dhexe. warbaahinta Israel ayaa sheegtay in wasiirka amuuraha dibadda ee wadankaasi Turkiga Hakan Fidan uu sheegay in Qaahira ay mustaqbalka dhow ku beeri karayso isbahaysigan samarkaana ujeedadu ay tahay in la dhidbo cudud mida oo la doonayo in la isaga dhaciyo Israel iyo inta gacan saarka la leh. maxaa Israel keenaya walaacan weyn ee gaarka inay ka qabto dawladda Masar? warbixin ka soo baxday Israel ayaa lagu tilmaamay in ku biiritaanka Masar uu noqon karin baalayri istiraatiijiyad oo si weyn u bedeli karta baalayri xisaabta amniga gobolka bariga dhexe maadaama cudud aad u xoogan iyo waliba khibrad dagaal oo baaxad leh ay dawladdaasi leedahay. Masar waxay tahay dalka Carbeed ee ugu horeeyay heshiis nabadeed la saxeexday Israel waxaana muddo dheer loo arkaa tiir muhiim u ah amniga xadka koonfureed ee Israa'iiliyiinta ay la wadaagaan. Masar haddii ay ku biirto isbahaysigan cusub oo ay ku jiraan Turkiga oo si adag uga soo horjeeda siyaasadda Israel iyo Pakistan oo si rasmi ah u aqoonsatay Israel, Tel Aviv waxay cabsi ka qabtaa baalayri arrintan saameyn weyn inay ku yeelan karayso iskaashiga amniga ee Masar iyo Israel iyo mustaqbalka heshiiska Camp David sida ay hadalka u dhigeenba. isbahaysigan ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku biiray 3 wadan. Saudi Arabia awood dhaqaale iyo kheyraad shidaal oo baaxad leh ayuu leeyahay waxaana loo arkaa mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan ee dunida Islaamka. Pakistan awood ciidan oo weyn iyo hub nuclear ah ayay la fadhisaa. Turkigana waxa uu leeyahay ciidan baaxad leh iyo warshado difaac oo si xawli ah u koraya gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. haddii Masar ay ku biirto isbahaysigu waxa uu heli karaa miisaanka juqraafiyeed iyo awoodda ciidan ee Masar taas oo ka dhiga karaysa urur difaac oo saameyn weyn ku yeeshay gobolka bariga dhexe. falanqayaasha Israel ayaa sidoo kale sheegay in iskaashiga warshadaha difaaca, tiknoolajiyadda militariga, sirdoonka iyo tababarada wadajirka ah uu xoojin karayo awoodda isbahaysiga haddii ay sii ballaartaan. Fidan wuxuu leeyahay isbahaysigu ma aha mid Iiraan lagu bartilmaameedsanayo laakiin ujeedaduba waxay tahay mid mustaqbalka la doonayo in lagu badbaadiyo dunida Islaamka. hadalka Fidan ayaa sheegay in heshiiska difaaca wadajirka ah uu la mid yahay midka NATO qodobkiisa 5 dhigaya haddii mid ka mid ah dalalkaasi la soo weeraro macnaheedu inuu yahay mid guud ahaantiiba waxa la yiri wadamadaasi ay isdifaaci doonaan ama ay ka dhigan tahaba in dalalkaasi la soo weeraray oo si wada jira ay uga hortagi doonaan dhibaatooyin ay la kulmayaan mustaqbalka. saaka warshadaha safaynta shidaalka ee wadanka Saudi Arabia dukum ayaa laga dhigay kadib markii kooxda Xuutiyiinta ee wadanka Yemen ay bilaabeen in ay si weyn u garaacaan. dawladda Sacuudiga ayaa u aragtay talaabadan inay tahay mid aad u adag iyadoo dhowr saldhig oo ku yaala gudaha wadanka Yemen si weyn loo garaacay. kooxda Xuutiga ee wadanka Yemen ayaa xadii sheegatay mas'uuliyadda weerar lagu qaaday diyaarado aan duuliye lahayn iyo gantaale isla socda oo lagu bartilmaameedsada xarun ka tirsan warshadaha shidaalka sifeeye ee Sacuudiga ee Aramco oo ku yaala gobolka Jazan ee koonfurta baalayri koonfur galbeed ee wadankaasi Saudi Arabia. afayeenka militariga kooxda Xuutiga Yahya Sariic ayaa sheegay in weerarada lagu fuliyay diyaarado iyo gantaale wadajir ah
isagoo tilmaamay in bartilmaameedku uu ahaa mid sax ah oo la haleelay baa layidhi goobtii gaarka loogu socday. dhinaca kale wasaaradda tamarta ee Sacuudiga ayaa xaqiijisay in dab aad u weyn uu ka kacay xarun ka tirsan warshadaha Aramco ee Jazan, balse kooxda dabdamiska ayaa ku guuleystay in ay si buuxda u damiyaan baa layidhi, iyadoo tani ay ka dhigan tahay weeraritaanka mid ka mid ah halbowlaha dhaqaale ee wadankaasi Sacuudiga. wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in aysan wax weyn oo hadda aysan muuqan, hase haatee dhibaatooyin ay jiraan. weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli Xuutiyiinta toddobaadyadii la soo dhaafay ay kordhiyeen weerarada isdaba joogga ah ee lagu hayo xarumaha shidaalka ee wadankaasi. dhinaca kale ilaa iyo 6 qarax baa lagu soo waramayaa in lagu weeraray saldhig kale oo ciidamada ay degan yihiin Yemen, gaar ahaan dowladda caalamku uu aqoonsan yahay gacan saar kale leh wadanka Sacuudiga. General Hussein Muhabi oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraanna waxa uu daboolka ka qaaday jiritaanka xog weyn oo ku saabsan in dowladda Mareykanka iyo dhinacyada gacan saarka leh ee dowladdaasi soo weeraray ay la kulmeen dhibaatooyin ay weligood ka sheekayn doonaan, isla markaana bartilmaameedyada yoolal ay markii horeba dagaalka u galeen ay hadda u muuqdaan inay dib uga laabteen. afhayeenka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan General Hussein Muhabi ayaa xaddii sheegay in dagaalka ka dhanka ah Iiraan uu yahay dagaalka kaliya ee Mareykanku uu qirtay in ay kaga adkaaday baa layidhi isaga iyo isagoo aan wax faa'iido ah ka gaarin dagaalkaasi. Muhabi ayaa sheegay in iska caabinta joogtada ah iyo jabinta cadowgu ay yihiin istiraatiijiyada dhabta ah ee dowladda Iiraan ee aan weligeed la bedeli karin. wuxuu intaasi ku daray in Iiraan ay cadowga si degdeg ah ugu qasabtay in ay ka tanaasusho dhammaan yoolalkiisa, isla markaana uu raadinayo sidii u furi lahaa marinka Hormuz. afhayeenka waxa uu carabka ku dhuftay in Hormuz uusan kaliya ahayn marin biyood, balse uu yahay dagaal juqraafiyeed iyo qayb muhiim ah oo ka mid ah awoodda istiraatiijiyadda ee wadankaasi Iiraan. dowladda Iiraan ayaa sidoo kale ku xirtay shuruudo furitaanka marinkaasi Hormuz ee hadda istiraatiijiga ah. Muhabi waxa uu sheegay in furitaanka marinka Hormuz uu ku xirnaan doono shuruudo iyo waliba habraacyo ay Iiraan dejisay oo hadda la joogo in si dhaba loo qaato. waxa uu sheegay in furitaanka marinku uu u baahan yahay in Mareykanka si buuxda uu u aqbalo shuruudaha Iiraan, isla markaana uu joojiyo baa layidhi faragelin uu ku hayo wada xaajoodyada. dhinaca kale afhayeenka ciidamada Iiraan General Mohammad Akrami Niyai ayaa sheegay in nidaamka hadda uu marinka Hormuz doonayo in uu dib ugu noqon karin, sidaas darteedna ciidamada dowladdu ay markasta noqonayaan kuwa iyaga maamuli doona. wasiirka amuraha dibadda ee dalka Iiraan Abbas Araghchi ayaa isna xaddii sheegay in wadankiisu aana wax wada hadal ah oo toos ah la lahayn dowladda Mareykanka, laakiin ay jireen fariimo iyo warqado la isdhaafsaday, taas oo dowladda Washington ay hadda naf weyn bidayso. wasiirka amuraha dibadda ee Abbas Araghchi ayaa xaddii sheegay in dalkiisa uu sii wadi doono iska caabinta inkastoo cadaadiska caalamiga ah uu sii kordhayo. Araghchi waxa uu sheegay in Iiraan aysan iloobi doonin dhiigga dadkii la dilay dagaalada intii ay socdeen, waxaana jiilka cusub uu ugu baaqay in ay muujiyaan wadaniyad iyo inay ilaashadaan madax banaanida wadankooda.